guddida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha gurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa golaha hor keentay warbixin qoto dheer oo ku saabsan xaaladda amniga dalka iyagoo diiradda saaray xoojinta nabadgelyada wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga warbixinta oo akhriyay gudoomiyaha guddidaasi Xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu adkeeyay baahida loo qabo dardargelinta xeerarka amniga xakamaynta rabshadaha la dagaalanka qabyaaladda iyo maandooriyaha iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta guddidu waxay sidoo kale soo jeedisay in la xoojiyo tababarka iyo qalabaynta ciidamada in la nidaamiyo isticmaalka baraha bulshada iyo in baraha bulshada lagu wacyigeliyo habraacyo nabad ku dhisan oo ka hortagaya qalalaase iyo khilaaf bulsho sidoo kale guddidu waxay golaha ka codsatay in la dardargeliyo ansixinta xeerka madax dhaqameedka dalka mudanayaal iyadoo laga duulayo kalfadhigii 9aad annagoo ka duulayna qodobka 6aad farqadiisa 3aad ee xeer hoosaadka golaha yaa jandaha kalfadhiga 9aad markaan aragnay doodii mudanayaasha qodobada nabadgelyada iyo arrimaha gudaha markaan darisnay guud ahaan xaaladda iyo dhacdooyinka amniga dalka ka dhacay waxaan ku soo koobaynaa warbixintan tala soo jeedin si la socotaan wada shaqaynta bulshada iyo laamaha dawladdu waa tiirka ugu muhiimsan ee lagu adkeyn karo laguna sugi karo nabadgelyada guud ahaan dalka si arrimaha loo helo waa in la dardargeliyo curinta iyo dhamaystirka xeerarka adkeynaya nabadgelyada sida xeerka madax dhaqameedka oo qabiyo qoraalkiisu golaheena hor yaalo xeerkaasi oo baahi weyn dalku u qabo waxaan soo jeedinaynaa in golaha loo qaybiyo si aynu uga dirsino laba xeerka la dagaalanka qabyaaladda iyo ka hortagga kicinta bulshada xeerka xakamaynta adeegsiga qaldan ee baraha bulshada iyo dhamaystirka xeerka saxaafadda oo golayaasha hor yaala sidoo kale waxaanu soo jeedinaynaa tala soo jeedin ku soo jeedinaynaa in bulshada lagu carbiyo habraacyo la xidhiidha carbinta shuruucda iyo isu soo baxyada salmiga ah ee dastuurku jideeyay si loo helo badbaado qalalaase wax u dhimi kara si looga badbaado qalalaase wax u dhimi kara nafaha iyo hantida in ciidamada booliska la siiyo koorsooyin la xiriira xakamaynta qulqulatooyinka iyo ka taxadirka qasaaraha muwaadiniinta soo gaara xilliyada mudaharaadku dhacaya in sidoo kale ciidamada booliska loo dhameystiro agabka lagula dagaalamo rabshadaha si aanay u isticmaalin rasaas nool xilliyada ay la kulmaan bulshada gadoodsan waa in xukuumaddu nidaam sharci u marto muwaadiniinta dambiga lagu eedeeyo lana ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta eedeysanayaasha ah shan waa inaanay muwaadiniintu eedeysanaha ahi maxkamad la'aan jeelka lagu hayn in ka badan inta sharcigu ogol yahay waa in talada qaran laga yeesho ajaaniibta sharci darrada ku jooga dalka ee qaarkood dambiyada ka geystaan toddoba waa in meel looga soo wada jeesto oo ciidamada booliska lagu gacan siiyo la dagaalanka maandooriyaha sideed waa in wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu dardargeliso ciyaaraha kala duwan si dhalinyarta looga jeediyo balwadaha iyo fadhi ku dirirka qabyaaladda والسلام